kalgacayl isku doonay yow gudeeqa wanaagga laba koox u israacshay kalgacayl isku doonay yow gudeeqa السلام عليكم ولا لو waxaan u baahnay habtaqan isku filan hooyadii xaqii degantahay inaan noo tilmaantaan oo tagno ayuu haweeney qaraacay dadkan ku yidhi magacaaga ii sheeg oo ma lama sii deyn karo ilaanu wala u sheegaa dadkan iyadu soo ansaxisay wasiir bay mooyay sameeyay doonini mimi deelo wasiir meesha deey taantii ku dhigay baa mara ku hada waday walaal waa isla hermiyo miyi ka timi qolay kareysatay oo annaga aba u indhaahe meesha ay ku lumina qolkaasaan doonay walaal la hadlanay dhageyso hadaba yus meesha waa hotel deexshoda waayo deelaanba wasiir noqotaanba madaxweynaha noqotay meesha way kareysatay way khalfanteen maxay khalfamay cid adiga hib madax waa garay ma sha Allah way walaal ilaahay u barakeeyo noo qaraa waxa taada hibaaq bay doonaysaa waxaan doonaynaa casuumayna casuumayno inaan si maca salaamayno ashada baan dhamaatay hay noo qaraa maxaa la yaabaan way wala xoolaha igu waxaas waxba ba quris xoolaha warkay igu soo daateen marka waxa ka keentay shalay buul ku jirto ilaahay ba dasi maanta fooq bagaan aan walba leedahay waxay xoolaha uga baahanta oo may hore uga seexato ma ka seexato markii hore gidaar bay seexanti wala iska baraya oo sidoo uga dhiibtay oo faansanahay war maxaan uga dhiibay haysataa xaashadaha loo xoolo nolbe soconayo afradinina barnaga ama buu dhinacna ma haystid anu ma dhinac waan haystaa oo wadaad banaaye bismillaahir rahmaanir rahiim na waxaan duruugtahay ana tolo wax qarxaya big iyo dantahay maxaa ku dhacay hooyo war cabdi qaniyow hooyo war basaacar wax baa dhacay hooyo waa telefoonkii de war telefoonna garmaa waxaan dhacay wixii qarxaya tolo miinadii may hooyo waa telefoonkii bismillaahir rahmaanir rahiim telefoona hello hal salaam ma sadohdayba hooyo waxa ku doonaysaa hiba soo deynaa de hooyaha soo daayay ha soo gashay soo galay waaye ma soo deynaaday imka soo dad gacalamanino ma sha Allah hooyo gabadh baa ku doonaysa marka lacagta lagu arkay taas lagu soo dabay lacagta cajiib ma wallahi hooyo waa iga tiibis sama waan kaashida sama waa iga shitay hooyo way maxaan kaaga shiday soo ilmahaygi mati kaashida hooyo waan kaashida way imka gabadh soo socota hooyo waaye waxaan ku wuri istajiyo waxaan ku nin mas'uul noqo adigu waxaan ku wuro inaan yar baa tahay waxaan ku wuri istajiyo waan ku nin mas'uul oo reer dhaqi kara noqo oo soo doxda waxaan ku wuri halla kaftamo halla hadadina waxaan ku wuri dabal dhaqanka waxaan ku wuri ilaali waa ku sidii hadda qani waayad iyo hadalka ma baxdidi waan ku waaninayay waxaan ku wuri ma sadar daaran sodonka ka xisho qeylnaya suuliga baa hadlay hadana de ka iga baqtay ma gurigan way igu wada qarxay yaa guriga igeey yaa way ka hayo guriga dhaxgeeyay waxaan ku wuri oodahaygi waxaan ku wuraay baasha iga ciyays hooy lacagtu meel walba taala adigo miye lacag haysan kartaa oo baad xidho iyo islaanta sodada kula yaabin sharaada lama xidho hooyo imika masaasa lagu socdaa waaye saabiskayda soo laakiin waxaan ku wuri dadka gacalka qof kastaba sidoo kuugu toosay ula soco hooyo la mariyo weeday xagan iskala fadhiistaan islahay alu goyn bas lahaa ku dhibay ma waxaa soo fadhiista walaal yiro hooyo soo soco maxaa ku taagay deeyahay waxbay ma taagan soo fadhiisa xabiib hadaba istaagin walaalo waa halkan aad degtay halkan baan dego wadalkaas la iibiyo ku yaraa keenay ودلك ما شاء الله أول لقب سويته ميد مكاننا مرة ما يرقو وارجع يا بس ما أنا واقف نقنية ونقنية يكون بني عسوبة يعني يوم أنا قلنا العيد نقول معاك هنا وكنا عاون بمبرية أنا هوي معاك هوي هوي أنا كوة شباب سكدك تابع هيدا معاك هذا ودي بستان تويرم هوي معنا معنا قرنا ما تقدين هوي معنا واو محيدي وأنا معاه وشغل مقالة اسكع شغل مقالة لكن اللي فوق دير بعض كرتها اسكع شو بكذا فوق داري وقاطع كريس سوي كريس ودي سنة سوا ما دي سنة يا بيه بيان ده كانوا كده دكتور معاه يوحل بالممكن يا وا halkay joogtaba way ku helaysaa hadii ilaahay ku siinayo saddex boqol oo halaad ka badan qiimihiisa halkan muddo baad ugu qiyaas waxa tii kala fahmayso hade gees uma qiyaasna waxa iska baakiisi أنت ما تقول جالس كجيس دي ما يابو واحد سمينسا كوا كلوا
rabash midhaho kan qabow way fiican hurdada fiican fadhiga leh TV-ga halkan uu yaalo cid walba la soo xiriirayso ayaa anfacaya maxan naasi waa leg ما قال في فيديو بري بان tagayaa baa baran jilayda hay'ad inta laba haween iska tago stress kaaga baayo Soma bartay wax dhammaan ma suuyaa insha Allah naygaam iska soo gud naygraan inaan maalin ku casuumana ana doonay maantayda insha Allah aynu labadeena meeliyaro degan sanjid waxaan yaa iyada meesha wada dadku uu waa wariyaga isfahmaya waa ku dhib نوين ودك توايا قناب كان halkan oo kale waxaan doonayaa in labadeena maxay si gaaraysta dumarnimo isku wareysano iska soo dhamaysto iska soo shaqeysta ayahay islaanta iska soo shaqeysta anagu inaan ku iska sii tagaynaa عاد قنيار oo ay qaaday xayn wala go kiyara ku soo maray dhul hadalo ku soo maray kiyara ma soo guri watagaysan meel baan isku maray shaqo inaan gaar gaaysi hay iska sii taga kaagi bayara la hadalo soo maray ya hay guriga insha Allah khayr isku تنسى هيا هيا خير بس خير عبد الغني والله هيا والله ولدي هيا لا انت انا هوري استقدر هيا براق هذا يا طبعا تابعي دو هيا maxaa galay هوي ما كاور كده أنا مرة هو كسر شيء هاي شيء وحين مرة هيا صار بسم الله ma noo kala yacnaa aniga iyo hooyo كرام بقى يقول ha fogaanina kiraan u taginay ya هيا bari waan soconayaa hadii la hayda hadii la nafteeno daay ha insha Allah sheekada inay noo dhamaat si wanaagsan inantiina adaa hayo faraha ku haya sax ya waxay soo mareen iyo wax kala waxaan ku sheekada way noo dhamaat marka inankii waa kaas waxaan ku mar dad faraha ku haysid waxaan ku inankii shaqo wanaagsan u raadi shaqada aad u raadinaysidna dekada berbera iyo meelaha maarintii meelaha aad u xafiisyada waxaan ku meel wanaagsan oo dhacdhacle sax wala lu raadi ta ilaahayna kugu xiltiro ya anaguna waan tagayaa xoolihii yaraayo wixii baa wada baylasana odaygina wuu maqnaa sax yasaa iyo khayr ban isku ogniyo duco aamin walaal insha Allah waxaan ku masaal yar un bay nagu dhacay dhibaato wax yar un bay nagu dhacay waxaasina anaga ina seegto da waxaan ku waa inaan soo ogeysino inantii waxaan ku nin maadna nidhaa inantii anaga ahayna bay ahay laakiin way dhici weyn sax waayay imkii deehaatan waxaan ku saay khayr ban isku ognahay insha Allah waa ka reerkide adaa faraha ku haya inankii inantii baaday ku jeclaadeen waa run isku midna waana sax waa run walaashay horta waxa maxay ahaydey anana sida ay mididii seegtay ee anagana mid noo seegtay sax maxay ahaydey daanaguna waxay hadii mari labadii carruur iska haysteen waa markii hore ma intaan iska haysan bay anaga maxay ahaydey noo yimaadeen inaan sida ugu wanaagsan ka yeelo laakiin ma ina dhicino qadarka wax walba ka horeeyo anagana ilaahayna mu garansiin maxay ahaydey wixii ba laakiin guntiya gabagabadii iminka ka dambaysa marka waxa weeye imka kuwa carruurtii wan meeleeyay ma sha Allah gurigeeyaasi qayb degan yihiin gurigana mala adigu wali ma arag insha Allah waa guri weyn oo 4 iyo 3 reerba qaadaya gurigaasi qayb ka degan yihiin gurigaasi reer ku dhaqan oo ku dhisan yihiin ma sha Allah waxay ahaydey waxay cunayaan waxay cabayaan masaariiftoodaba ana la weydiiyay ma sha Allah dib badan maxay ahaydey anigu waan soo maray inaan mideeyo ay gurigana la soo galaan odayga markii hore dhanka madaxadeygay adigu aakhirkii waan ku guuleysto oo kuwa halka ku wada nool shaqadan odayga xildhibaanka waan u sheegay waxaan ku inankii maadaama muhiimka gurigeenu ku nool yahay oo inankii inanteena qaba yahay de waa lama horaan inaad shaqo u raadisid shaqadiina wuu ugu maqan yahay sax ilaahay de wuxuu uga dhigay haday maaliyad tahay haday mid kala tahayba shaqo sax waxa laga yaqaanaa sodogii oo yiri ana u raadinaya inuu ilaahayna ku asturo kiisaguna shaqada gutee ka soo baxa insha Allah ka dhigan rajeynayna de waa kuwaas maxay ahaydey walaal adiguna halkaaga sadegan tahay waan ku soo gaargaarayna insha Allah de mar walba maxay ahaydey labada reer ee imka caaniye biyaha bay nahayo labada carruur ay suukan keenay maxay ahaydey kuwii ilaahay isku asturo ilaahay isku faraxsanaada ee dhexdooda wanaag yaalo ilaahay naga dhigo de walaal maxay ahayd inaan ku hagaajiyana waan jecelahay biritoole ku amba bixiyo insha Allah marka caawa iska hooyo biritoole marka waas inoo bariyo insha Allah ayaan insha Allah halka kugu imanaya ma waxaan isku lahayn weeyaan marka waasan inoo bariyo ayaan halkaas kugu imanayna insha Allah odayga ma naga yara kulul oo naga yara dable laakiin xumaan ma leh adduunku inantiisa yare uba ugu jecel cidii ay keentaan inuu jeclaado sankaas uu kaga tolaya inaan kan Cabdi Qarina nin ceeb la malaha ma waa nin wanaagsan nin shaqaysanayo reerkiisa dhaqanay gabadhiisa jecelo annagana jecelo baariyo si wanaagsan kula hadlayo waxba uu haynine hadalka wanaagsan baa sidii hadalka wanaagsan waan ku haystaa maxay ahayd ciyalkan walaad ka warwar lahaanaysa marka magaalada ka soo xiisa dhacnana kuwan u imanayna baati waa sax wala waa si fiican wallahi
si wanaagsan weeyana warwar maayo maanta haday adiga ku haystaan soo maaha saasay walaal isku ognahay insha Allah subaxnimada hadii ilaahay aan kugu iman iskana seexo walaal waayo walaal habeen wanaagsan maxantaydi haye walaal shay aad iyo aad buu walaal casuumadaadii sharafta lahayd wanaagsaneed nacam kaaga mahad celinaya taa jawaabteedina aad iga sugaysaa insha Allah ilaahay isku keen nabad keeno waana kula soo hadlay Cabdiqaadir telefoonka ka qaaday haye walaal macaan ma ku sii yardhaweeyo walaal may walaal iska sooran meesha ba garanayno inaan ku dhaxlumayo meel fara badan oo inaad ku ambata macquul haye adeero gabadheeda adeedo adeer ma sha Allah ma sha badaka adeer الله أدر كقول حبني ده ليه أدر أدر أنا ما يربل قين ترى ماي ها سوبر ما كني وينته ده ما يرى يا ترى شيك مخدقة كده ماي هاي أدر وكا هالكاسة دك أبتاعين هاي مكان المسؤول إلى المسؤول بقى تاي مكان وهرب المسؤول كتا قبض ويو وهرب من يا مكان ده لو أنا جيب الله كاسوق هذا يا هذا سيدي حلو ده وين meeshan anigu meel ka dharkay kama tusho magaceeda sugan oo sugan baa inuu si caawa meel kale ba inta way dharka qashi way ka dilayaan hadii anigu meel kale bil qoday yarada dharka saawa adar calaash ma kale kaftane calaash xidhan ku ka dhimanay waa xalaashan raado ka muuqataa adeer ma kale ku sabaxaysa Soomaali ma kale ma tawaantay kale ma tawaantay meel wixii la israacsan wixii la israacsan eeg هذا شيء قفك يبيني مركو قرايه هذا ويحسي وسكر راعيه هذا وسكر راعيه ودي انا كدي دبقدي سروق هذا يهر حلبان كو سو بيري تو صدق حجاب وتليه مeel ka awto shay iyaga u tara haye halkana looga tara qaybta dumarka looga tara wadniga sidoo yahay niyo halkana looga tara iyo gabadha lantaar ciida waxaan ku oonay halkan ka doonta wariya kraantayda wariya wallahi billahi tasiichaysa baad hada إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله إلهي إلهي بريء أبو يرتينا وياك قرن ولا قبل. وتعامل واحد سقي. إلا يوف بدو تيجي تفتي. هذا بريء ده شيء ده هم بينه يرقى هذا يي. الله هذا أتوقع زي بريء. إنا واحد سينا سلو دخل هذا هذا لكن وانا شعير بنا قاضي شعير كلام الله يا لما هذا أنا أقول لك عربي يا لما مرتاح إن عنده وحدة شيء إن نوع نباه بده هيدا على يشوف هي كنا ما هرب هي كودي هي وحيد دبان هذا هيك هالك لوجو نوين سكدي مسؤول سكدي لكن مسؤولية وادي قاطي وادي كان مقدر نقضي مو قدر نقضي ده مكانه جاي الباك لو كلا قرب ماي أنا روح مغرس ما هذا رجس دافشي صدق باه رجس دافشي صدق باه رجس صدق وريا مهما يوم مهما أصب صدق باه رجس دافشي صدق باه رجس دافشي هاور صدق باه رجس دافشي هذا صح لكن بس كده بيجي الدنيا سبليني يا برجع لا أنا كده بانش لا توقعت هاور يا أنا كاسو صار هاور يا بس كده كم قولين إنه كده ينتهي قبض وان لو قمت تقول قرن تابع الله هذا جب تابع أقدر جبت له شيء فات هذا والله هذا بس بعد شو نقول ساعة هذا بس بتصل ما هيك وكات خارية والله هذا هركة وهركي والله أسوأ ولا يحرم الصبح لعكت هذا والله لعكت هذا أمير لعكت هذا وطيرتي غيرك ما أنا غير كات هاي مسؤول بنك هاي إحنا كودرون بالقماصة يا هذا كودرون بعد مرة بربر كيف ما يقع حتى تيار سما غير غير إن اللي جرى يسوق سيدا يقول يا حاجة لعتك بحنا وأنا أدري وحن أنا أدري هي وحن كوري أبو وحن نوي مكان نكى عوجد السين كي يهولها صح السوق يتشوجا شيء ده هو نكان هذا هي تكلم بريء وحن كذا بودي ما تقع هذا السوق طبعا كان عيا وشيء صعود وشيء هذا هي معني سيك هلا مريه الركوب كوكسن وحنا عسدتنا وحن كبقى لو حسين تسقوا هذا صدق برا يسدف شيء صدق برا يسدف شيء بنت كورنسا هذا يصدق هذاك كورن يسعدك السلام عليكم عليكم السلام وانا بصدق وها ما شاء الله عبد الغني وانا كانت انت والله انا كيف وينك ولكن لعبت كودره اذهب يذهب كودره مدري هذا يذهب كودره شيء هذا هي سما ودري يذهبتي يذهب كودره هي
waa 678 isku filan baa la yiraahdaa waa ninka miyiga maalin baa naqaatay reer magaal waa soo yimaada maaha waa taan keenay dukaankiyo sugan keeno waa tamaanta wuu isbedelay arrinkiisu waa hadda waan garan waayo waxaan lahaa waliyo ninkan wajideedna waad haysaa arrinkiisu waa sugan yahay iminka oonu daraadeer ayo juwankiiba waa juwankii weeye sax ya waa juwankii weeye dima waa iska juwanaysanahay haye sugan balankeenu insha Allah iyo saddeqa asxaabay iminka waxaa nala joogtaa hibaaq oo ah hooyadii filimka hooyadii magaranaysaa ikraan marka hibaaq kusoo dhawo bal oo waxaad ugu horreyn nooga warbixisaa bal filimka saad adigu weerartid ka hibaaq ahaan walaalaad ba mahadsan tahay waanaan dhowahay maxay ahaydey de filimka horta waxaan u arkaa wax fiican waan bulshada kusoo kordhinay maxay ahayd bisha ramadaanna aan maxay ahaydey aad uga farxinay taageerayaasheeda ayaan markaa hooyooyinka dhibaatooyinkan ku dhacaan oo kale maxaad iyaga ku waaninaysaa والله horta waxaan leeyahay anigu bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maxay yahay inantu haday qaangaadho inan qaangaadho noqoto waa guur joog maxay yahay aanba nin faqiir ah ha jeclaato ama mid miyi ha jeclaato noloshu waa miyi magaalo iyo faqiir iyo taajir marka maxay yahay qofkii ay calmato aba taajir ha noqdo amba faqiir ha noqdo amba ha noqdo reer miyi amba ha noqdo reer magaal kii ay calmato baa anfacayade irsaaqadan Ilaahay baa haya wixii cunayeen wixii cabiyeen si wada noolaanayeen halkii ku noolaanayeen laakiin muhiimadu waxa weeye qofkii inantaad xalaal kuugu keento inaad horta dee waxaan ugu yeedhay inaan macnihii horta filin u buuhaa waxaan filinkan wacdiyo waana la yidhaahdaa bishan rabadaan 3 rabadaan baa loogu talagalay sidaad boogsoon tahay intaasuu soconayey kolley waxna wuu dadka farayey waxna waa ka reebiyey xag diin ahaan iyo xag dhaqan ahaanba musalsaladii dee la daawan jiray oo adigu dee sidii aan ugu talagalay taxane ah oo xalqadiba halkeeda kasii raacayso ayuunbuu ahaa dadkii la socday iyo dee intii ku xidhnaydna dee way garanaysaa kulli waa wada daawatay markaa filimka noocaas buu ahaa wuxuu lahaa filim wacyigelin buu ahaa wacyigelin oo dadka dee wax tusaya adigu waxaad ku matalaysay aabe nin aabe ah oo xanaaqsan intiisii lagala tegay markaas nin aanu garanayn kala maqan yahay bal filimka saad adigu guud ahaan shakhsiyan u arkaysay والله دي waxaan u arkay film wanaagsan dadka wax taraya wax tarayo haddana wax tarayo ma baan aragnay aniga waqtiga iska qabaan oo iska diin lahay marka anigu de kulay meel baan kaga jiray dad badan oo asxaab aan nahayna dad ku jireen oo actor badan marka qof waliba meel buu qaabilsanaa miyi ila magaala la waday hawl badan baa gashay waqti badan baa galay chance badan baa galay director badan baa galay agaasimo maxamed caabiyo marna agaasimahayaga ah marna directorkeega ah waxa Universal TV guud ahaanba madaxiyo majaba namadii duubay wixiiba oo iskaashaday aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa oo filimku dee aan laantood socdeen iyo inteedii matalisida cabdiqani isku filan hibaaq ikraan cabdiqani yare shacab yare muna dad fara badan aniga meelaha aadka xitaa dadka igu sii haray macnihii filimka dabadaba ma garanaysa dad baa jiray dee kusoo biirbiirayay oo xitaa qaar dee ka galeen face ka galeen inantii walaashii matalis oo kale runaantii sidee wuxuu jishay macnihii inay jirto waxaan ay hayso duruuftan ay markaa ka cabanaysay ay matalisi inay markaa iyada hayso oo kale ayaad moodaysi isku filan oo kale markay tageen miyiga nin uu tagayo walaalkii mataliyo geel iskala jooga miyi jooga oo waranaya inantaan la soo tagay magaxan kale magaaladii iyo waxaan doonayaa geel ka bixiso markaasuu matanaad migi ka keentay magaalada wallahi waan la xasiisteen waa actor waa macni waa dadka aan hadana filimka didusha aan kaga soo darnay waxa kamid ahayd inantii hiba ikraan oo ahayd madaxiisada naciima iyo qaybihii miyiga oo dhan ciyaaray hawlihii badnaa uu maray marka waxaan u maleynayaa qof waliba meeshiisii ayuu kaga aadan kaga soo baxay
filinkan ma la odhan karaa heesaad qaaday oo deeqay hooyadaa dembi kuma lehe dadka aabbahaabaa iigu daran inuu filinkaasi mateeye wallaahi bilaahi dee kolley waa iska kala xig baahan laakiin marka laysu eego heesa bal hooyada dembi kuma lehe dadka aabbahaabaa iigu daran dee islaantu dee waatan inanta la doonaysay inaan koo hibaaq dee la rabtay annagoo anigan diidan marka waa odaygii ugu darnaa bal heestaa ereyadeedii bal iyar hadda noo qaad dugsi la'aanteen docdanigu ban deeqay hooyada dembi kumaale deeqay hooyada dembi kumaalehe talilaliladha dadka aabbahaaba iigu dar marka waa isqusaynaysaa xildhibaan qaybtii kugu xiisaha badnayd ee filimku shakhsiyan maxay ahayd wallaahi xiisuhu waa fara badnaa oo dee wuxuu wax fara badan bay ahaayeen waxyaabaha igu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa halkaa gabadhaan kuu sheegayo kale walaashii matelaysay isku filan iyo ekraan oo iyaguna markay miyiga tageen meel cidlaa dab iskaga shidanayo dab isku ooganayo iska kilib yaro ku dhex jiro iska sheekaysanayo heesa iska qaadqaaday macnihii qaybihii miyiga oo dhan hibaaqoyana de bartii hooyada meesheedii dhigtay oo aadba islaan caadiba moodaysiyo naxariistii hooyanimadii marka way fara badnaayeen waana filin taxaanaha runtii xalqadiba xalqad dhiibaysay marka waa sidaa waan wanaagsanaysatiin maasha allah wallahi maasha allah alxamdulillah bal ka warama filinka cabdiqani ka horeeya runtii horta filinka wacdi iyo waano ilaahay baa mahad iska leh mar labaad wax mahad iska leh dhammaan howlwadeennada Universal TV siyo ahaan agaasimaha TV-ga ahna directorka filinka ahna aftigay ahna saaxiibka ahna adigu gawdhe runtii filinkan markaan 20 xalqadood marinay maaxow ayaa waxa soo gaadhay waqtigu baxayay directorka amba agaasimaha maxaad safar la dhara tagay safarkii waxaan ku nidhi maadaama filinkii laga helay waa inaad safarka baajisaa oo aad garanaysaa aynu filinka soo dhamaynaa alxamdulillah adigu filinkii adigu waan dhamaynay maasha Allah weeye si wanaagsan buu noqon dhamaaday waxaan rajaynaynaa inaanu sii wadno insha Allah taala waa hadii aanu helo dhiirigelin weey dhiirigelin ma laha badnaa heesuun bay ku khafifeen moysoonti kana madaxweynaha heesay kana wax siiya kaas waa fanaankaas marka jilista iyo waxa filmaanta iyo waxa wacyigelinta wadankeena ma xiiseeyo iyo dawladda toona inkastoo wacdi waana uu suuqa aad u haysto kana habar iyo dacad toona ma baahna igran والله هرت دوا سدا وعبدقني شيغي رنهانتي فيلمكان wuxuu noqday filimkii intii rabadaan ay socotay ay social media noqoto haday YouTube noqoto intaba haystay sababtaana waxa lahaa directorka aanay filimka agaasimaha TV-ga Faisal Maxamed Caabi oo aad ugu mahad celina sida wanaagsan uu soo agaasimay runhaantii haduuna isagu waxa sameyn maanta anigu waxaan oo dhan maanan أنا نايمانين waxa kale oo yagana aan mahad celinaa dhammaan daawadayaasheeda taageerayaasheeda sida fiican ay noogu soo hambaleeyeen ay noo dhiirigelineen ay ugu faraxsanayeen ay u daawanayeen xitaa iyaga daawanayeen iyaga noo soo saarnay Soomaa wixii iyaga noo soo saarnay iyagu waajibkooda ahaa inay daawadaan way soo gudbiyeen marka ayaguna waxaan leenahay aad bay mahadsan waxaan rajaynaynaa insha Allah in sanadka dambe hadii aan noolaana aan barta ka sii wadi doono musalsalku wuxuu noqday waxa ugu horeeya Soomaaliba iminka ay hadal hayso ha sheegin gudaha sheegin dibadda ha sheegin iskuulada ha sheegin malcamadaha ha sheegin supermarketyada meel aan lagu hadal hayn ilaa shirkadaha waxaan ku weydiiyay bal filimkan fikradiisu sidee ku timi فيلم فريد صحيح قلت سيدا دكتور تلفزيون عالمي يونيفرسال تلفزيون ugu ma taqaan telefishinada Soomaalida ku hadla mar walba waxaan ka fikirnaa dadka daawanaya inaan wax soo bandhigno cusub marka waxa weeye waan fikirnaa rabadaan la gaadhin maxaynu maanta rabadaan soo socoto maxaynu umada u qabanaa soo bandhigi karnaa moogta kadibna waxaan ku fikirnaa inaan sameeyno musalsal laga maarmi karo musalsalada ajnabiga muxuu ahaa hindida ahaa turkada ahaa xaban caas runtii dhaqan ajnabi xambaarsan ma waxba runtii aan loo baahnayn soo gudbinayo bulshadeena marka sidaas aan ugu dhalasiina mid qana kama lahaan marka hore ka wada sheekaysanaa waxaan qaban karnaa musalsal fiican sameeyno awoodooda waa leenahay dhaqaalaha waxayna wax walba marka sidaan ku fikirnay mid qana fiican sameeyno ana runtii de way hawlgarado mid qana horaan sameeyay mid qana barnaamijkii taxanaha ay qoto runtii waan khibrad badan ka helay aniga iyo mid qana dhalinyarada kale baan aad uga helay mid qana khibradda si wax loo shiro si wax loo sameeyo taas runtii noo suurtagelisay waxaan filayaa maanta ma jiro dad macnay waxaan soo bandhigi kara ma jiraan moogto anigu waxaan leenahay waa fara badan ilaa 2016 kan bilownay amiga cabdiqaadir iska filan oo kale barigaan yar baa moogto nagu bilaabay sheekada maanta waan ka weynaa dagaal kale weey
marka aan ka dhex galo waxa jira dhalinyaro badan oo baraha bulshada iyaguna aad idin kala shaqeeya ayadoo maxaa aad ugu mahad celinaya runtii markaad iminka geshid Facebook ama social media meel walba waxaad arkaysaa musalsalka soo yaacaya waxaas oo dad baan la shaqeeyay dhiirigeliyay qofka bini'aadamka markuu wax fiican sameeyo qof walba uu taageeraya ma ogtahay marka waxa weeye Soomaalida guud ahaan aad uga heshay dadka ku jira social media aan taageeray Soomaalida dhammaan taageertay runtii wallahi waxaan ku leeyahay wax mahad celin aad u badan baan u haynaa waxa weeye aad ugu mahad celinaya mid iyo laba mashii karo dad badan oo ku jira social media runtii aad noo shaqeeyay ugu dambeyntii waxa tahay directorka filimka aad ka wacan ka baxay Soomaali wada hadal hayso ee wacdiyo waano qaybtii adiga ugu qosolka badnayd ee maxamed ahaan ku taabatay qaybtii bay ahayd anigu horta weligeed waxaan jeclaa dhinaca miyiga dhaqanka jeclaa moogta qaybta ugu fiicneed aan barnaamijka ugu jeclaa waxay qaybta miyiga weeye moogta baxaskii la baxsaday ekraan rafaadka soo martay qayladu cabdiqani halka kala ahaa waa guriga mala jooga gaafkii dhacay arooskii raanu sameynaa ku sameynay waxaan ku leeyahay qaybahaas runtii aad ugu jeclaa moogta runtii aad isoo boqol garan dawada runtii ku ciishaday moogta qaybtan runtii waxa directorkeeda qayb la qaatay oo runtii hab badan geystay cabdiqani oo muxuu ahaa assistant-kayga ama ninka kale ee dhinaca directorka markay noqoto aad gala shaqeeya waan wax badan waliba markaan tusaale ahaan soo qaato markan miyiga uu gabadha jiidayo uu leeyahay hiblaayo waxa soo isaga sameeyay moogta fikirkiisa ahayd marka runtii maskaxdan film ku socdo midaan kaliya timi ma moogta waxa tiimaha ku wada shaqeynay cabdiqani waxbu keenaya muxuu ahaa heeba wax ku daraysaa ekraan waxba macaanaysaa eega wax kala tuuray macna waxa weeye waxaan fikir aan soo ururinay oo aan tiim sameynay way moogta runtii waxa weeye ma qaadan karo guusha dhammaan kan taqaan maxamed cabdi wada sameeyay anigu waxa laga yaabaa line upka suurigan sameeyay soo dhacay nidaamka waxaan qurxinta keenaya wax weeye waa shiliyaasha way moogta haddana shiliyaasha ahaan dad khatar khibradena waxaan ma soo gudbiyeen marka runtii waxaan aaminsanahay inay mataqaanaa wax aan dhamaantood aan wadanahay directors waan wax wada qabanay tusaale ahaan iminka ekraan oo kale maanta waxay noqotay aktarada ugu caansan Soomaalida marka soo joogaba anigu wax walba erey walba ay oranayso mar sheegmada wax sameey tusaale ahaan marka ninka gudinta ku baxsanayo iyada lahayd mataqaanaa hadaa sida aad xabash ku bararan weydid waxa isleeyahay maskaxda keentay moogta waxa isku beegtay idinku joogay tuulo oramo yaa xabash waxa weeye qof waliba isaga waxaan qurxinaya wahiba dadkan ilaahay galiyay way moogta dhalinyarada dad very talented moogta waxaan leeyahay keenay anigu de storyline ma leeyahay directionka waxa weeye wax si wada jiraan wada sameeyay imkan wax jeclaan intaan ka bixin deyn halka ay ugu wada yimaadaan oo saddex taago kooxdaha aad yaad agaasime kooxdii waa kuwa wax kala sheegin cameraman Abin Abris hibaaq hooyadii wiilkii quraanka akhriyay wanaagsanaa aad yaad wiilkii baariga ahaa ninkii odayga ahaa ee taani ninkii loo jiray aad yaad cameraman lamaanaha qarniga shacabiyada ninkii la dhacay haye waxaan jeclahay inaan u mahad celino si wada shira dhammaan taageerayaasha meel ay joogaan waxaan leenahay aad iyo aad baa mahadsantiin ciid wanaagsan insha Allah waxaan idin bal qaadayaa hadii la ka dhigo rabaan dambe inaan matana barnaamijkan kala sugan maadno uu noo socon doonaa muxuu barnaamijku waxaan kala idin sheegay dad baa mataqaana maxaa lagu soo gabagabeynaa barnaamijka hadii barnaamijkan soo gabagabeeyno mataqaana shakada u dhamaanaysa moogta marka waxa weeye meesha barnaamijku dhamaado kala soco sanadka dambe hadii la ka dhigo insha Allah waxaan soo wadnaa sanadka dambe barnaamijkan ka sii fiican oo dadiyada raacay malafku la tagayo aan runtii wax badan ku baran intaan barnaamijkan wadnay marka waxaan rajaynayaa dhamaantiin sanadka dambe wixii khalaadka yar dhacay inaan wax ka fiican aan sixi doono wax fiican aan soo barin doono insha Allah ka dhigo waan idin mahad celinayna dhamaantiinba waxaan idin leenahay la socda insha Allah taala musalsalka waan idin soo celin doonaa insha Allah taala ciidka sanadka dambe iyo ramadaanka dambe ka hor intaan ramadaanka gaarina filimkan oo ku celisa ayaa jiri doona agaasimaha idin sheegay xilliga uu soo baxay waxaan jeclahay inaan xasuusino bisha saddexaad sanadka soo socda in dhammaan barnaamijka soo celin doono insha Allah format bilo ilaa dhamaad ka dhigo marka waxaan leenahay aad ma santihiin ciid wanaagsan meel kasta joogtaanba thank you very much كل عام وانتم بخير ما سنتي دماتي beertii xorriyadda bara caafimaadiyo ayay guri laysku baantay baxsanay hargeysay ka gudoomay baaqi dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhair ciid mubaarak waxa jira barnaamij aad in badan aad wada sugayseen barnaamijkaas oo ka dhici doona habeenka ciidda habeenka ku xigta hoteelka Cali Tirda ka dhici doona hamoogaanina barnaamijka waxa igula sugan oo ila daadihinaya waa dhammaan fanaaniintii ka timi jirtay hotel Cali Tirda iyo kooxdii wacdi iyo waano oo habeertay hibaaq kamid tahay Yuusuf Ceegaag iyo Ekraan waxaan leeyahay waxaan idinku taataaba doonaa
waxyaabihii ugu qosolka badnaa barnaamijkii taxanaha ahaa ee la socoteen bisha Ramadaan wacdi iyo waano ku soo dhawaada barnaamijka waxaan leeyahay moogaanina hakana maxay bulshooyinta taageerta dadna wacdi iyo waano iyo sidoo kale kooxda ka tunta hotel cali jirde waynooya habeenka iyo kuwa wanaagsan iyo waxaan nooga bartay waxaan idinku darnay inaad jacay igu abuurtay urkaygana ku beeran tahay abayla magaca sugan baa ku sifeeyay dharka suuban ee sugayaal sugan style hoyga quruxda kalayo aradbeel carwada sugan style waxa ay bisha barakaysan ee Ramadaan macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran oo 50% ah noocyada kala duwan ee dharka yaala sugan haddaba aan ku tilmaamay sugan style waxa ay ku taalaa fooqa tiyaatarka bartamaha magaalada Hargeysa hore u soo gaadh oo yaa laga badin ducadaan